wafdigan oo isugu jira wasiiro xildhibaano iyo safiirka Somaliland u fadhiyay sutaga Imaaradka Carabta ayaa gaadhay deegaanada Gadhay iyo Higlo oo ka tirsan gobolka Togdheer bulshada deegaanadaasi ayaa si diiran u soo dhaweeyay wafdigani odayaasha iyo haweenka iyo waxgaradka deegaanadaasi ayaa iftiimiyay cudurda taageero hayaan xisbiga midnimada iyo horumarka Somaliland ee kulmiye hadii aan ahay Ahmed Usman Warfaa iyo xisbigayga kan taageero arkaysan inuu daba taagan yahay runtii waanu ka digirnay waxaana noo digirnay waanu baasanay inaanu codkayga siino xisbiga leeyahay kulmiye sida la jigay midna la dhalacayn laakiin waxaanu go'aansanay ilaa loo codeeyo xisbiga kulmiye marka waxa leeyahay anagu waxaanu codeeynaa xisbiga kulmiye hadaan noo deegaan kareedno waxay inaydaan inaga dayicin fursadda waxa xisbigiina u hiilinaysan waxa weeye waa codkiina maadaama codkiina u hiilinaysaan xisbigiina waxa la doonayaa maalinta 13 bisha xisbiga kulmiye u codeyno balanino ma aha soo inaydaan fursadda inaga dayicin balanino ma aha xisbiga kulmiye sidii aan u taageeri lahayn ee quwadayada iyo taageeradayada iyo midnimadayada aan u muujin wafdigan ka socday xukuumadda Somaliland ayaa iyo xisbiga kulmiye ayaa iyaguna kula dardaarmay bulshada deegaanadaas inay codkooda siiyaan xisbiga talada dalka ee kulmiye 13 bisha November oo dalka Somaliland ka dhacayso doorashada Somaliland sanay ka horeeyay oo qabtay waxaana idin rajeenayaa idinkana amaan ugu ballan qaadana way madaxda qaranka halkan joogto in idinkana la idin qaban doono balaasta dhexda laga marnayo halka kulmiye ku qoran tahayna hareeraha ka marinina waxa ka marnaysan dhexda ayaa balaas yar ku qoraysaan taasuna ay ku qufulaato yaanidan ilaawin baahan jirtay kulmiye sidii la ku yaqaanay iyo taageerada xisbiga oo hayseen waxa loo baahan yahay maalinta codka la bixinayo ila codka hadii ilaahay la soo ugu hubsataan insha Allah hadii ilaahay yiraahdo halkan waxaan idin wafdigeygana uga sheegay magaalada inay tahay magaalada lagu codka badnaa idinka ayaa ama taageersanaa waxaad sheegteen markaad saddexda xisbi eegteen inaad doorateen xisbiga kolkiiba boqol ku rajo weynahay insha Allah biidmillah inuu musharaxeena madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu soo baxo kaasoo aynu ku dooranayno wax qabadkii kulmiye uu ka qabtay jamhuuriyadda Somaliland waxaynu ballanaa saddex shaqo ku hor wasahayda soo qaado safarkaaga soo qaado u soo diyaar garow inaad inaad u diyaar garoobo baahiyaha doonina maalinta neefka ka halaabo haddana foodka taga insha Allah muddo 3 cisho kadibna waxaynu geli doonaa doorashadii haddii Allah idmo waxaynu rajaynaynaa doorasho nabadgelyo inoogu dhacda insha Allah ta'ala waxa kale aynu rajaynaynaa inaad doorashadaasi noqoto dalkeena u horseeda horumar iyo khayr iyo bash deegaanka waxa aan idinka codsanaynaa martiina ka nahay inaa codkiina siisaan xisbiga kulmiye iyo musharaxiisa Muuse Biixi Cabdi ayaa la Cabdullaahi Jaamac warbaahinta caalamiga SPC magaalada Burco xisbigan waa xisbi horumar ka dalka ka shaqeeyay idinkan maanta waxa markii la idinka yahay inaa codkiina iyo cududiinaba la garbar bistaagtaan musharaxa Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Cabdilaahi waayeel Xasan Salabaan ayaa la BM TV-ga caalamiga Somali News magaalada Burco